till late into the night. محمد بوهاري مدحوينها ودنka Nigeria oo sameeyay maalintii jimcihii magacaabista mas'uuliyiin badan oo tiradooda ay kor u dhaafayso ilaa 1400 oo mas'uul ayaa waxa dadkaasi uu magacaabay ku jira dhowr xubnood oo geeriyooday sanadkii hore dadka geeriyooday ee uu magacaabay Maxamed Buhari madaxweynaha Nigeria waxa kamid ah nin senator ah oo ka tirsanaa aqalka sanadka Nigeria oo lagu magacaabo Francis Octoboso waxaana uu dhintay bishii December 2016 hayeeshe magaciisa ayaa waxa uu ka soo muuqday liiska dadka la magacaabay oo ka badan 1400 oo sarkaal waxaana xilalkaasi ay xukuumaddu u magacaawday hay'ado kala duwan iyo wakaalado hoos yimaada dawladda xilkan loo magacaabay senatarkaasi geeriyooday sanad ka hor ayaa waxa uu yahay inuu hogaamiyo golaha saxaafadda ee Nigeria ku-xigeenkii hore taliyaha booliiska iyo nin baadariya ayaa labaduba waxay dhinteen horaantii sanadkani iyagana waxa loo magacaabay xilal kale dad badan oo reer Nigeria ayaa si aad u la yaabay magacaabista dadka dhintay ee ka soo baxday aqalka madaxtooyada ee wadanka Nigeria laakiin afayeen u hadlay madaxweyne Buhari ayaa u sheegay BBC-da in liiskan la diyaariyay 2 sanadood ka hor sida muuqatana aan dib u eegis lagu sameeynin ka hor intii aan la shaacinin jimcihii la soo dhaafay Maxamed Buhari ayaa warqad u qoray aqalka sanadka waxa uu ka codsaday inay ansixiyaan mas'uuliyiinta uu magacaabay hayeeshee hadda waxa la qorsheynayaa in la soo bedelo shaqooyinka loo magacaabay dadkaasi dhintay